السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش شرفت لها سومال يونيفرس وربحنتان waxaan idinku ugu soo gudbin doonaa 10 qof ee ugu maalqabeynsan caalamka balse booqashadan hadii ay tahay midii ugu horeysay channelkeena soo booqato fadlan subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay soo badgareyno sida aynu ku soo xiganay shabakada Wall Emirates tirada dadku ku nool caalamka ayaa waxa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 8 bilyan 2208 kamid ah tirada aynu hore u soo sheegnay ayaa ah bilyaneer haysta isku geyn lacagtooda 9.1 trilyan hadaba waa kuma 10ka ugu horeeya ee liiska 10 qof ee ugu maalqabeynsan caalamka kaalinta tobnaad Larry Ellison waa 74 jir Mareykan ah hantida uu haysto Larry waxa lagu sheegaa inay gaarayso 58.5 bilyan oo lacagta Mareykanka ah waxa uu madax ka yahay shirkadda Oracle oo kamid ah shirkadaha ugu weyn caalamka ee soo saarta applicationada lagu maareeyo xogaha ama database-ka kaalinta sagaalaad iyo mid sideedaad waxa ku kala jira walaalaha Koch Charles Koch iyo David Koch hantida uu haysto Charles ayaa lagu sheegaa inay gaarayso 60 bilyan halka David uu haysto lacag gaaraysa 60 bilyan oo la mid ah mid uu haysto walaalkii ka weyn waxa ayna leeyihiin shirkadda Koch Industry oo ka ganacsata بترولك معدنتا iyo kiimikada kaalinta toddobaad ee liiska 10 qof ee ugu maalqabeynsan caalamka waxa ku jira Carlos Slim ganacsadaha reer Mexico ayaa haysta lacag dhan 67.1 bilyan oo lacagta Mareykanka ah waxa uu maamulo ka yahay shirkadaha America Mobil iyo Grupo Carso shirkadda America Mobil ayaa ah shirkadda toddobaad ee ugu weyn caalamka dhanka isgaarsiinta kaalinta lixaad Amancio Ortega ninka ugu qanisan qaaradda Yurub ayaa liiskan ugu jira booska lixaad waxa uu haystaa lacag gaaraysa 70 bilyan oo lacagta Mareykanka ah waxaana hoostaga shirkadaha Inditex iyo Zara waxa uu ka dhashay famil faqiir ah oo ku qasabtay in uu waxbarashada ka tago si uu u quudiyo familkiisa balse maanta waa ganacsadaha ugu weyn caalamka marka laga hadlayo dhanka tafaariiqda waxa uu ka ganacsadaa dharka kaalinta shanaad Mark Zuckerberg milkiilaha shirkadda Facebook ayaa ah 30 jirka kaliya ee ka soo muuqday liiska 10 qof ee ugu qanisan caalamka waxa uu haystaa lacag gaaraysa 71 bilyan oo lacagta Mareykanka ah 2004 ayuu ku dhawaaqay mashruuca facebook.com oo hadafkiisu ahaa inay iskula xiriiraan ardayda dhigata jaamacadda Harvard balse maanta waa shirkadda koowaad ee ugu weyn caalamka social media kaalinta afaraad Bernard Arnault maamulaha shirkadda LVMH oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta dharka waxa uu haystaa lacag gaaraysa 72.1 bilyan oo lacagta Mareykanka ah kaalinta saddexaad Warren Buffett madaxa shirkadda Berkshire Hathaway waxa lagu sheegaa lacagta uu haysto inay gaarayso 84 bilyan 2008 waxa uu ahaa maalqabeenka ugu weyn caalamka isagoo haystay 40 bilyan oo lacagta Mareykanka ah kaalinta labaad Bill Gates 62 jirkan Mareykanka ah ahna milkiilaha shirkadda tiknoolajiyada ee Microsoft ayaa ku jira kaalinta labaad iyadoo hantidiisa lagu qiyaaso inay gaarayso 90 bilyan oo lacagta Mareykanka ah iyadoo xusid mudan tahay bilowgii 2018 inuu ahaa ninka ugu qanisan caalamka kaalinta koowaad Jeff Bezos 54 jirkan u dhashay dalka Mareykanka ayaa ah bilyaneerka ugu horeeya liiska 10 bilyaneer ee ugu qanisan caalamka waxa uu hanti ahaan u haystaa lacag gaaraysa 112 bilyan oo lacagta Mareykanka ah milkiilaha shirkadda Amazon oo ah suuqa ugu weyn caalamka ee qaab online ah wax lagu kala iibsado iyadoo la saadaalinayo in uu noqdo shakhsiga ugu horeeya ee gaara 1 trilyan